Bismillahi Rahmaani Rahiim. Soo dhawaada videogeena waxaan overview yar kaga bixin doonaa ama yara dul istaagi doonaa programka la yiraahdo QuickBooks. Intuit QuickBooks Enterprise 21 ayaynu ka yar bixin doonaa overview yar muxuu qabto waxyaabaha kuu fududeydinayo sida loo isticmaalo intaas ayaynu dul istaagi doonaa kusoo dhawaada muxuu Intuit QuickBooks waa program loo design gareeyay inay adeegsadaan kambaniyada yaryar ay u badan yihiin badankan waa ganacsiyada Soomaalidu ay u badan yihiin kambaniyada aadka u waaweyn laakiin aadka aan u waaweynayn wuxuu fududeydinayaa marka adeegyadii kambanigaas uu qabanayay adeegyadaas oo saddex u kala baxaya saddexda u kala baxayaan waxa weeye waa xisaabaadkii oo accountyadaadii iyo xisaabaadkii ku jiray iyo sidii kala ahaayeen iyo wixii oo dhan buu halkan kugu tusayaa oo kuu soo fududeydinayaa adeegga labaad ee uu fududeydinayo muxuu qofka adeegsanayaa waxa weeye qiimeynta alaabta iyo la socoshadeedii tusaale ahaan alaabtii markaad muxuu diiwaangelinayso waa inaad qiimaheedii soo geliso waa inaad muxuu qiimaad siinaysay geliso waa inaad la socoto muxuu alaabtii markaad gelinayso kooskeedii waa inaad geliso qiimihii lagaa soo siiyey iyo qiimihii aad siinaysay iyo on hand intaad soo iibsatay la socoshadii total value intaad haysato wuu kula socotiinaya marka inta alaabtii ku taalla mar walba waad ogaanaysaa marka inta ku taalla inta ku hadhay inay hore dhamaatay inay hore xitaa waxyaabaha kale uu bixinaya waxa weeye alaabaha ugu socodka badan leh ee kambaniga ayuu kuu sheegayaa optionka saddexaad u qabtaa waxa weeye oo shaqaalihii baad iyaguna la soconaysaa payrollkii markaa muxuu ahaa inaad mushaharadoodii aad halkaas ka gashato automatic inaad waqtigii soo geli inaad gashato inaad muxuu ahaa u samayso xitaa shaqooyinkoodii aad kala qaybiso aad u samayso muxuu ahaa aad siiso mas-uuliyadahoogii oo tusaale ahaan qofka saleska joogay ee alaabta iibinaya ee muxuu ahaa customerska alaabta ka iibinaya inaan u geli karin muxuu ahaa qaybtan vendorka ee alaabta bakhaarada laga dalbanayay iyo wixii inaan u geli karin kan kale vendorka ee alaabaha noo dalbaya ee la xidhiidhaya kambaniyada waaweyn ee alaabta soo dejinayna inaanu iibkan wax ka bedeli karin qofka dhan ee managerka ee iska lehina inuu wada isticmaali karo programka reportska oo dhan wada arki karo saddexdaasa ugu waaweyn waxyaaba uu qabto barashadiisu ma fudud tahay barashadiisu waa fudud tahay ma adka saad halkan ka arkaysaba interfacekiisan horaaba ayaaba ku fududeynaya wixii oo dhan waxaa lagaaga baahan yahay inaad haysato basic computer knowledge inaad computerka yaro cilmiga u leedahay deedna dad computerka yaro cilmiga u leedahay wax ka hor istaagaya ma jiro waad ku shaqo tagi kartaa waad yaro waxaad fahmayaan baad uga baahan tahay saddexdan buu qaybsamaya markaa programku saddexda good vendorka oo saan hore soo sheegnay muxuu kambanigaada alaabta kala soo degaysay inaad adigu alaabta kasoo iibsanaysay waayo adu markaad iibinaysay small business tahay ganacsada yar tahay alaabtii markaad la soo degayso waa inaad muxuu ahaa kambani kasoo iibsato markaa kambaniga kasoo iibsanaysay intana muxuu ahaa intaas ayaa maamulaysa markaa muxuu ahaa qofka kuu jooga ee ama purchase orderka ku sameynaya waa inuu muxuu ahaa qaybtaas u isticmaalayaa halkanna waa alaaba adiga waa customerskaaga adiga kugu xidhnaa dadka alaabaha ka iibsanaya F1 deedna markaa wuxuu noqonayaa intaas uu qaybsanayaa halkanna waa employee oo isagu waa shaqaalahaagii badanka aad looma adeegsado dee Soomaali nahay waxba shaqaalaha si man walba inuu maamulaa halkan waa kambanigaagii kambaniga muxuu ahaa adeegyadii kambaniga khaaska u ahaa chart of accountkii accountnadaadii muxuu ahaa baananka kugu kala xidhnaa alaabtii kugu taalay iyo servicekii adeegyadeed qabanaysa haggii laga ogaanayay inventory activity-gii alaabtii muxuu ahaa aad soo iibsatay ama alaabtii aad iibitay la socoshadeedii inay muxuu ahaa meeshii gaadhay qofkii inuu helay wuxuu samaynaysaa ID sidaas oo kale halkan waa bankinkii iyo waa bandhigashadii kala bixistii adeegyadii muxuu wixii dhan ku qabanayaa markaa muxuu ahaa videoga nala gaaban waxaanu overview kaga bixinaynay waxyaaba uu qabto QuickBooksku waxaanu bilaabi doonaa dhowaan course free oo aad ugu baran doonto dhammaantii sida uu shaqeeyo programkani iyo muxuu ahaa waxyaabaha muhiimka ah ee aad uga baahan tahay inaad ku ogaato sideed u adeegsan lahayd haddii aad shaqo ku hesho sideed u adeegsan lahayd lagu soo dhigo computerkii
waxyaabahaas oo dhan baynu baran doonaa markaa waad soo dhawaada walaalayaal wax aad u adag maaha casharadana wada socon doontaan youtube-ka subscribe dad saarto casharada waan soo gelin doonaa insha allah waad mahadsantihiin